maanteen sharaf bay inoo tahay inaynu maanta halkan isugu nimaadno innagoo ka markhaati ah gabadhii ugu horreysay ama gabdhihii ugu horreeyay baan idhaahdo inkastoo aanan odhan karin waa gabadhii ugu horreysay oo Yurub ku biirtaa laakiin foolaaddii ugu horreysay gabdhaha ee Yurub siyaasadda qaangaar ka noqdo anigu shakhsiyan wax badan rooda kama aqaani laakiin intii sheekadeeda aan ka soo gaaray iyo dhowr jeer ay noogu timid golaha wakiilada maraan xildhibaan ahaa marka arrimaha dibadda aan joogay baan u malaynayaa laba jeer iyo baanu kulannay iyadoo xaggaa ka timid waxaan u arkaa uun gabadh hormuud ah dhaqdhaqaaqa nolosha casriga ah ee dibadaha iyo tadalkaba qof kasta oo bilaadanina kolley inuu la yimaado karti iyo hufnaan iyo dulqaad iyo damac siyaasadeed oo waxa bilaadanku u nool macna weyn male qofku bilaadanku waxa la igu lahaa nambarkii ma haya 212 ama 240 nin yaa inta caalamka hadda qoran oo wax ikhtiraacay oo caalamka wax cusub ku soo kordhiyay limba wuxuu doonaba hawl waxa la yiraahdaa dawladda Israa'iil marka la isku tiriyo from South Africa to Australia to New Zealand to Canada marka la isku soo qaado waa 30 milyan dadkeedu tiradeedu dal kasta oo ay caalamka ay joogaan marka la tiriyo waa 30 milyan caalamka kalena hadda waxa lagu qiyaasaa 7 billion iyo waliba number ka sii badan dadka 212 ka ah 170 ka midi waxay ka soo jeedaan meesha aan magaca hadda ku dhuftay ama hal la jeclaado ama hal la nabcaado waxaad noo warartaa inay uun dadaal tahay rooda annaga qudhayadu ma yaraysano halkan haddaad 93 ama 92 nala joogi lahayd meesha aanu ka bilownay waana qiyaasayaa inaad war ka haysay sawiradii magaaladu markaa lahaydna haddaad dib u eegto ma aanan orod yarayn xadku awoodi meel kasta hana gaarsiisay howlkan aad maanta fadhido oo aanu aad u sharaxnay aad loo sharaxay ayaa Somaliland ugu mudnaa meel laba qof la isugu keeno markii Somaliland la dhisay from 1993 mar baan ugu yaraa dadka siyaasadda ku jira maanta golaha wasiirada ku jirana nin iyo laba iga weyn mar aanina cigaal u ahaana wasiirka ugu yaraabana waayahay waqtigaas iska sida ma aqaan maanta ina kaahin iyo faratoon waxaan ahay ninka markaana waxa noo dhaxeeyay gaab u badan dalkan ay horumar buu gaaray qaybaad ka mid tahay dadka dibadda wax badan bay ku soo kordhiyeen dadka guduhuna dadaal badan bay sameeyeen wali hawlka madaale wali waa hogadii dhalinyarada dalkeenu meel fiican buu marayaa inta doorasho la kala bedelay laakiin waa la wadayaa horumarku maalin kaliya ma yimaado gabdhaha waxaan leeyahay ku dayda golaha wasiiradana hadda aad bay u soo galaan marka anigu in cigaal wasiirka waa waligeed gabadh ma soo gelin laakiin
عقلي كشغيسي أو باشا كنت قديش إسكندرية وأنا رنت هذه كده هي لو ما أنت لو تقاطع أسفل أنت وقلها وسيرة مدحوينه أودي ويدين سمي إنه وإذن أنه قلها وسيرة كسر بحده مدحوينه جامين إن قاطع قبلها للصيد دمرك لكن وحكى في عنا الله إن المسك جرى عذاب وعدد الكاي الدلغات كا بوجا إذن كو كردجنا يا هايس إن عاد نقاشسان وأتاجروا iyo deegaanka iyo albaabka kasta garaacdan si aad u noqotaan hormuudka siyaasadda gabdho badan oo islaam caalamka hogaamiyay malaha gabadhii ugu horreysay caalamka head of state ka noqotay Sandra Sri Lanka ba ahayd gabadheedii baa ka noqotay markii dambe gabadheedii iyo iyadii baa midna madaxweyne noqotay midna ra'iisul wasaare saasay dumarku hadda xilka qabtaan oo adag yihiin oo ma naxaan marka ayada ku dheer يا ماركا إنديرا جاندي إيو باكو حكتي عدن وحا أي وسترين كليين وحا كبضنا هجامين تدمركا إيشيانك أيها مركز تكبضنا أكوري باكو حكتي لبادي قبل كلا بدل تشري بنغلاديش لبادا تشانن كسو كلا تشيدي أيها يقولنا ميدوان مركب سنجت ماركا دوا كفلنا إن أيرون ليدي كسب بحضو مر عنو مرخاتك النقطة يدو الصومالي لأنه جامينيسا لكن ماذا النقطة دون تمان نقان لكن ماذا وين ترى هذا هنكا ماذا وين إنما أدل كان لا هاي قبله إنه نواء ودان ويهين قحي مرك الله 1998 91 وحي كوري دمر كنا لما قيمين كرين أود هذا يكباسة تقول لكن 1991 وحي كدم بيه دمرك الصومالي ذا أفك الصومالي كوها الله وحلو قاعد إن أيهين دمرك باسد بدن أو مسؤوليات بدن أو طلقات بدن أو مسؤوليات دي رجع حافظها هي ديجان كأي عرورتي يحبرشدي بقول كيف الشن يتدبات الرجع كلوريجي ما يدري منك هذا الكو قامين كرين وهذا قامين كرتا قول بندين رجعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته